هلا 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 صومال وإذن سلامي قرابو ضمان سأتهين هي صومالي إنما محمد ودن من ربي عالم كأيك جوجان إن ما أنت محاربة دعو عن ربو قف كستو حاول والد كستبه إن محاجرته محوها إن المها أو دلي دعو أو لجع لاذو إنه دعيو إن كستو عدك أنا هاي haddana waxaan rabaa wiilkayga haashin wiilkayga cali haashin maxamed cali inaan inta duco kooban oo yar oo aan codkayga ahayn inaan u duubo ayaan jeclaystay maanta ay taariikhdu tahay 29 Oktoobar 2017 da'diisuna wiilkayga waa 13 dhawaan wuxuu buuxinayaa 14 sano ka ila dhageysta in yar isuga سوق إن يركبوا معي على وجهنا يا انت ما لو تلاقين ان ان كدوبه لكن وحي با سocdo taxana ah wiilkayga aan jeclaysto in yar oo kooban waaye waa hooyo wiilkeeda waaninaysa oo riwaayad lagu dhigaayo wiilkeeda waa kaasa marka wiilkeeda la balamaysa ana inta yarta maasada yarta inta kale kuma jirto inta maasada yarta waa wiilkayga ugu tala galay dhageysta marka daba qadirkaysiiyo waadigan qaan gaaday oo qunu istaagay qaybo murtidu waa qaaliyatayda meel ku qoro dhagtaadu ha qabato qalbigaaga ha u degtaa hooyo qowlkii ilaahiyo quraanka baro oo qaali noqo diinta garanaayo qodob walba qalluhu waa leeyda qaadicu salaad ha noqon oo qabriga iyo eelku qalbigaaga ay ka bixin waa sidaas sheekooyo kama naqdiso booga iyo qalinka qaado dadaal ku qabo waxbarasho waa qaali bulshaday qabiyo tirtaa qorshaha noloshaada iyo qoyska dhabu ogow khamarji baxroobay saaxiibo qalqaal ha noqon qadaadkoo la xiirto quruxiyaanu kaaga dhigin qaranka iyo ciidda wadankeena qaaliga ah naftaada u qisaaso dhiigaagu ha u qabteen naftaada u qisaaso dhiigaagu ha u qabteen oo qaban waa nacse noloshaada qiimo geli qaraabo ku timid oo qoyskaaga soo martiday hooyo qosol iyo salaam fiican ugu qoshuuc qolqolka ha istaajinay qolka hore u gogol qaaci u diyaari iyo qoob cad iyo sariir wixii u qalmaaya iyo qaalmo fiican si oo qaraabo waa rixine hooyo dadka ha qadin haddii gar lagu qabsado geed lagaaga waco hooyo gar maqaato waa ceeb garyigi lahaw gartaada u sheega sida guulaheen og yahay oo geesi baa tahay abidkaaha gabi dhaclayn geesi baa tahay abidkaaha gabi dhaclayn haddii guurtidii la diray ay go'aan ridaan hadday gartu kugu xun tahay ay gulaalan tahay hooyaha griifin guurtidu waxay gartaan gacantaha ku saydhin oo geedka ha uga kicin go'aan dabadiina nin ragaatee ha go'an may maqlaysa taarag baan wahay haddaad madax noqoto oo meel lagu dhigmado hooyo magacu waa sharafe maandhiiska hayska dilin oo ninkii maal haysta iyo maalintaan nin qaday hooyo maslaha u noqdaan maamulkaaga guud qaybow hooyo waanooyinka ha qubin qabuulka allah leh ee qaadirku ajiib amiin qalbiga ku adkaysa ducadayda qaaliga ah
آمين سفي عما كوم مغليا هذا الصوت كوما دمين آدية فرمسيقة تقول دوايقة تالين تالين حين أرضي سوقا وادي قوم ماذا حي حنونية wiilkayga caliyow waana waan ku dhameeyay inkastoo aniga codkayga aysan ahayn laakiin waanadaani hooyada ilmaheeda waaninaysa isa ula hadlaysa ayaan aad uga helay waxaan la jeclaystay wiilkayga cali haashim maxamed cali hooyo waa ku salaamay aad ayaan ku jecelahay intaas ayuu ku ogyahay kilibkayga maanta Soomaali Nabi Maxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.